السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا كتاب كليل هذا الضبط بتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد. كتاب كان سمع عيسى كم مغتاب وكتاب كهاد لا والله كهاد ليه متشابهات كقرآن كلفظي قاع. سمع كتاب كم مغتاب للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد. كتاب كان وكهاد لا متشابهات كقرآن لنا على اللفظي آياتها اسكوئك kala saaritaankooda kama hadlayo dhinaca tafsiirka iyo ahkaamtiisa mutashaabih dhinacaas amaha oo mutashaabih lafdigaas magaciisaba ka muuqata. Kitaabka waxa qoray Sheikh Fawaz bin Sa'd bin Abdurrahman waa kitaab muhiim ah oo ka kooban ilaa 22 qaacido oo mid walba ay muhiim tahay qofka quraanka xifdinaya ama ku dhex jira xifdinteeda ama xifdisan ama macallinka ah ama ardayga ah qof kastana anfacaysa. kitaabkan waa kitaab aad u fudud sida hore u sheegay waa 22 qaacido kaliya waadna la soo deegi kartaa soo PDF ah mobilka uu kula soo deegi kartaa computerka kula soo deegi kartaa haddii aad la soo degto Google-ka waxaad ku qoraysaa kitaabka magaciisa PDF ahaan ku heli kartaa PDF taxmiil kitaab الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد baad ku qoraysaa kadibna website-da ku soo baxay marba kii ku shaqeeya ayaa tijaabinaysaa wad kula soo deegi kartaa mobilkaaga wad kula soo deegi kartaa computerkaaga ama laptopkaagana wad kula soo deegi kartaa dhinacaasi waa dhinaca la soo deegitaanka kitaabka dhinaca magaciisana waa الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد sida idin muuqata muallifka kitaabkuna waa Sheikh Fawaz bin Sa'd bin Abdurrahman ayaa kitaabka taaliifiyay oo qoray waa 22 qaacido aad muhiim u ah oo qof kastana anfici doonto arday iyo macallin iyo qof hada quraanka uu xifdinayo iyo mid hore uu xifdiyay ku soo dhawaada 22 qaacido 10ka koobaad waa hagaag intaan u guda galin 10ka ugu horeeya ee kitaabkan aan wax yar isdul taagna inagoo ku daahaynin muqaddamada kitaabkan iyo waxyaabaha culimada qaarkood ay ka dhaheen. الشيخ محمود بن عمر سكر وحوليه هي كدمركو الشيخ كتاب كان اخريه وحوليه وحن ادر دارميا قف كستو الله سبحانه وتعالى وكم من يستين القران كان حفظيه iyo xitaa dadka bilowga ahaba in kitaabkan mudaalacayaan oo ay ka faa'iideystaan oo ay badiyaan ku celcelintiisa iyo akhrintiisa isbuuc kasta markay quraanka dhameystiraan yaani kitaabkan sidoo kale in aysan ka tagin oo akhrintiisa ay badiyaan ay sheekhu si guud u dardaarmaya kadimarkii sheekhu waa sheekh محمود بن عمر سكر مع مؤلف كتابك لكن وشيخ خلاص كتابك مركو اخري فوائد كو اركي كتاب كان ريكومنديشن كان اما كبخنا يفل علنتن ونا ددك ugu dardaarmay in kitaabkan ay ka tagin وهاجاج ولي حنقول جنا مقدمة كتابك الشيخ محمد بن عوض زايد الحرباوي sidoo kale wuxuu leeyahay dadka waxbaara inay wax ku mashquulaan waxa ugu mudani ama dadka tartama waxa ugu fiican ay ku tartamaan waa mudarasa kitaab Allah waa kitaabka Ilaahay Azza wa Jalla inay bartaan oo ku mashquulaan oo ay baaraan oo ay ku tartamaan waa waxa ugu fiican ayuu leeyahay Sheikh Al-Harbawi. muqaddamada kitaabkan waa muqaddamo aad muhiim u ah bal isha halgu haya loo deemalaanin halkan sheekhu wuxuu kaga hadlayaa mutashabiha waa meeqa متشابه وميقا نوع ولابا نوع دبعا سان هوري بو سو sheegnay mid waa midka lafdiga ah waana midka kitaabkan uu sheekhu kaga hadlayo inaguna insha Allah aynu u guda gali doono midna waa midka muhkamka ah halkana kaga ma hadlayno sheekhuna kaga ma hadlin midka kitaabka magaciisa ka muuqata kitaabkan sheekhu kaga hadlay waa mutashabih lafdiga mutashabih lafdiyi weeye waa hagaag muqaddamada kitaabka aynu ku guda jirnaa halkan sheekhu kaga hadlayaa markii ugu horeysay ee cilmiga mutashaabih quraanka la qoro goormay ahayd taariikhdeeda ahayd yaasa qoray dabcan waa mas'ala taariikhiya la isku khilaafsan yahay iyo magac ahaan qofkii ugu horeeyay qora laakiin waxa loo badan yahay in uu yahay imaam Kisaa'i 189 taariikhda hijriga markay ahayd inuu qoray waana mid kamid ah qura'a sab'a لكن magacyo kale waa la sheegaa Musa al-Faraba kamida Muqatil ibn Sulaiman ba kamida laakiin waxa loo badan yahay annahu al-Kisaa'i imam Kisaa'i inuu yahay qofkii ugu horeeyay ee fannigan mutashaabih quraanka wax ka qora waana kitaabkiisa caanka ah ee loo yaqaan mutashaabih al-Qur'an halka wuxuu kaga hadlayaa الإخلاص لله تعالى عملك قفك وقبني إنه لله إله درتي وقبته يقفل بإنه نيدي سوناجيه عبد الله بن عباس رالي الله كان نقضى سيا بيس به
wuxuu yidhi inamaa yaxfadu rajul calaa qadri niyati qofku wuxuu xifdiyaa inta niyadiisu ay leeg tahay inta niyadaadu iyo leefalka niyadaadu ay tahay iyo heerka ay gaadhsiisantahay niyadaadu ayuun uunbuu xifdigaaguna noqonayaa qaybtan muqadamada waxaan kusoo gabagabeynaynaa qaybtan shiikhu kaga hadlayo in qofku uu lahaado uu haysto hal kitaab markuu qur-aanka xifdinayo wuxuu leeyahay shiikhu sida qofku uu maqalka wax ugu xifdiyo oo qur-aan aad dhegaystaad u xifdin karto ayaad indhahana kitaabkaad ka arkaysayna aad kaga xifdin kartaa taasoo macnaheedu ay tahay inaad hal kitaab lahaato waa muhim inta qur-aanka aad ka xifdinayso sababtoo waxaa dhici karta marka qaarkood in macalinkaagii uu meel kuu calaamadiyey ama adigu aad meel calaamadsatay aad khaldaysay laakiin marba dad kitaab ku boodo meeshii lagaa calaamadiyey ama kitaabkaagu qaabkii aad ugu xifdinaysay si ka duwan buu kula noqonayaa marka inta xifdigaagu ka noqonaya xifdi xoog leh waxaa lagugula talinayaa iyo qof kastoo shiikhu kula talinaya inuu hal kitaab uu qofku laasimo muqadamada kitaabka way aad bay u fiican tahay anigoo soo dulmarayay un baan kole meel ka soo qabtay laakiin qofkii waqti u helaya muqadamada aysan u dayma la'aanin kutub kale oo isla muqadamada iyo meelo kale lagu sheegayana waad ka heli doontaa oo kitaabu kuusii tilmaamaya in lagu dhaho sheekh hebel baa kitaabkaa qoray magaciisina uu meesha kugu qoran yahay kitaabkana waad la soo degi kartaa sidaan bilowgeeba ku sheegay waad ku qori kartaa googleka kitaabka magaciisa soo pdf telefoonka aad ka heli kartaa laptopka iyo kombyutarkaaga haddana si toosa waxaan u gudagelaynaa cashirka koobaad ee kitaabkan waa hagaaga daba aynu bilowna qaacidada koobaad ee kitaabkan marka koobaad qaacida ugu horeysa waxay ku taala ama ka bilaamaysaa beejka 23aad inta hore waa muqadamadii aan sida kooban isu dul taagnay qaacidan magaceeda waxaa la yiraahdaa sidii muqataba at-tartiib al-hijaayi sidoo kale waxaa loo yaqaanaa at-tartiib al-alfabaa'i taasoo macnaheedu ay noqonayso kala horeynta xarfaha higaada carabiga alif ilaa ya sida u kala horeeyaan ayaa marka laba aayadood ay shabahaan waxay u kala horeynayaan sida xarfahoodu u kala horeeyo tusaale ahaan haddii laba aayadood meesha iska shabahayaan ay midna ka bilaabmaysa xarafka ba midna xarafka nuun waxaa horeynaysa aayad ahaan aayadda xarafka ba'da ku jiro waxaynu ognahay in xarafka bacdu uu ka horeeyo xarafka nuunka sidaa darteed aayadda horeysa waxay noqonaysaa aayadda xaraf ahaan u horeysa haddii hal suurad ku wada jiraanna qaacidadan weli way dabaqaysaa laakiin lambarkii unbaa kala horeynaya haddii laba suuradood kala duwan ku kala jiraanna midna suuradda korey noqonaysaa tusaalahaan suuratu baqara iyo suuratu yuusuf oo kale tusaalayaashana waa ku fahmi doonnaa insha allah tusaalaha koobaad allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun oo suuratu baqara ah iyo isla suuratu baqara summun bukmun cumyun fahum laa yacqiluun okay meesha iska shabahayaan marka waa ilaa summun bukmun cumyun fahum laa ilaa intaa waa isaga mid yarjicuun iyo yacqiluun weye meesha ay iska shabahayaan waxaynu eegaynaa marka ya-da xarafka ku xiga waa raa aayadda koobaad halka aayadda kalena ay tahay cayn yarjicuun iyo yacqiluun waxaynuna ognahay in xarafka ra'du uu ka horeeyo hijaa'iyan ama kala horeynta xarfaha alphabetical order waxa loo yaqaano ama tartiib alfabaa'i waxaynu ognahay in ra'du ay ka horeyso xarafka caynka sidaa darteed aayadda hore waxay noqonaysaa yarjicuun aayadda dambena waxay noqonaysaa yacqiluun hagaag tusaalaha labaad suuratu baqara allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay wacaahidnaa ilaa ibraahiima waismaaciila an dahira beytiya lildaa'ifiina waalcaakifiina warukaci sujuud suuratu alxajna allah wuxuu leeyahay waid bawa'naa liibraahiima makaana albeyti an laa tushrik bii shay-an wadahir beytiya lildaa'ifiin waalqaa'imiina warukaci sujuud marka maxalushaahidkeenu hadda waxaa weeye laba aayad iskaga egyihiin lildaa'ifiina maxaa ku xiga waalcaakifiin markaynu joogno suuratu albaqara suuratu xajna lildaa'ifiin waxaa ku xiga waalqaa'imiin meesha iska shabahaya marka waa labadan kelmadood waalcaakifiin iyo waalqaa'imiin xarafka caynka wuxuu ka horeeyaa hijaa'iyan xarafka qaafka sidaa darteed suuradda hore waalcaakifiina bay noqonaysaa oo ah suuratu baqara waalcaakifiina sababtoo ah caynku wuu ka horeeyaa qaafka baqarana way ka horeysaa suuratu xaj kala horeynta tartiibka suuradaha qur-aanka marka suuratu baqara waxay noqonaysaa waalcaakifiina halka suuratu xajna ay tahay waalqaa'imiina waa hagaag tusaalaha saddexaad allah subxaana watacaala wuxuu leeyahay yaquuluuna biafwaahihim maa laysa fii quluubihim suuratu aali cimraan halka suuratu inaa fatax ama alfatxna ay ka tahay
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بأفواههم بألسنتهم والله هذا ميلود محل شهيدك أما استشبهوا كجروا حين إيجنا مركا بعد محاكو حقا أفواههم بألسنتهم أوكي لامكو يفعد يا هرية وحين أغنى هي إن حرفك اللامكو وكدن بيو حرفك فعد وفعد هريسة فعد يا هريسة بأفواههم سادت سورة آل عمران وحاوي يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم هلك سورة إن فتح مع الفتح رأيكتها يقولون بألسنتهم لامك صوت اللامك وكدن بيا ترتيب الهجائي حرفك فعد سادت سورة هوسي وإن فتحه وبألسنتهم تصالها أفراد فأخذتهم الصيحة مشرقين وسورة الحجر اسم الحجر فأخذتهم الصيحة مصبحين والله بقى يشبهها أو هل سورة كودة جرى أو هل بيت كودة جرى فأخذتهم الصيحة مشرقين يا مصبحين ميم كحاكو حيقة شين مشرقين هل كان ميم كحاكو حيقة مصبحين وحين نعقنا الشين وكهرية حرف صادك حرف الصاد كأنه كهرية سادرت آية ظهر فأخذتهم الصيحة مشرقين آية دمنا فأخذتهم الصيحة مصبحين صوت الشينك أي الفابيتيك الأوردر أما ترتيب الألفبائي كهرين أي ألف باء تاء ثاء جيم كسو آخرنا شينك كهرية صادك سادرت آية ظهر ومشرقين سورة الكهف وتصالها شناده لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا إمرأ إسلا كهف لقد جئت شيئا نكرا وقصدي نبي الله موسى يخضر عليهم السلام لحمرتي لقد جئت شيئا إمرأ نكرا مركا محل شاهدكم ماشي الشبه سوا إمرأ نكرا مركا همزة النون كيا هرية وحا هرية همزة سادرت الآية ظهر ولقد جئت شيئا إمرأ آية دمنا وحاول لقد جئت شيئا نكرا أو نونكو وقدم بيا همزة سادرت آية الدنباء من القصة آخرين نسو نكرا بعد دنبيسا تصالح اللحاد سورة الحج فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يئس الحج فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر محل شاهدكم مركا حاول البائس القانع الباء حرفك بعض وكهريا حرفك قافك سادرت آية ظهر وحوي فكلوا منها وأطعموا البائس آية دمنا فكلوا منها وأطعموا القانع وهجاك تصالحة الضباط الله سبحانه وتعالى وحليه في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا أنزلناه هلك سورة الزخرف نايكتها إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون انت قالوا يستقيم الله آيات أنزلناه جعلناه مركب مع شاهدكم أنه إيجي إنه قاعدة ضبق سحوية أنزلناه جعلناه همزة يجيمك يا هرية وحين نقولنا هنا همزة أي كهرية حرف جيمك سادرت الصورة ظهر أو يوسف وحين نقول إنا أنزلناه هلك سورة الزخرف أي دنبيسه إنا جعلناه صوت جيمك وكدن بيا همزة تصالها سديدات الله سبحانه وتعالى وحوليه في سورة فصلت قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به هلك سورة الأعقاف نايتاي قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به مع الشاهد مركا حوي ثم كفرتم به يا وكفرتم به ثم يا واو وكفرتم واو يا ثاء بالإيجا يا حرف الثاء يا حرف الواو حين أقنا هي إن حرف كثاء ألف باء تاء ثاء وهو بلوغا واو قلنا قبل كجرا واو سادرتي سورة فصلت وكهر رئيسا ترتيب كالسورة ده القرآن سورة أحقاف آيات ظهر وحين قال سامرك يقول أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به هلك أحقاف أن قال سأقول أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به صوبته واو وكدم بيا ترتيب هجائك حرف كثادة أحقافنا ويكدم بيسا ترتيب كالسورة ده سورة فصلت تصالها سديدات ولا وقارد ولا مقال كان بين الدينية بل إني تصالها سديدات فهمان وكل هورين تعي سوا صاران لبعض عيد ماشي إسكشبهيان أليم يمهين سيدا وكل هوريان
waana laba aayadood ku jira hal suurad laakiin lambarkooda kala horeeya bal in walaalaha muuqaalkani uu gaari doono insha Allah muuqaalkan inay ka shaqeeyaan intaan soo gabagabeen 10 koobaad ee kitaabka ad-dadd bitaqciid sheekh sagaal tusaale kaliya ayuu qaacida hadda ka qoray laakiin wuxuu sheekhu sheegayaa in sheekh la yiraahdo Abdul Muhsin Al-Abaad uu qaacidadan waa qaacida hadda aan sharaxayno ah tartiib al-alfabaa'iga ama tartiib al-hijaa'iga uu ka sameeyay ilaa 88 aayadood ilaa 88 aayadood ayuu quraanka ka soo saaray oo qaacida ka qoray waana kitaabkiisa loo yaqaan aayatul mutashabihat al-alfaaz fi al-Qur'an al-Karim wa at-tamyiz baynaha kitaabka magaca iska leh ayuu sheekh Abdul Muhsin wuxuu ka qoray ilaa 88 tusaale halka sheekhan uu hadda 9 tusaale oo kaliya ka qoray marka waa qaacido aad u weyn oo laga soo saari karo ku dhawaad 100 waa laga yaabaa sheekhan 88 sameeyay ee ka soo saaray quraanka in ka badan in la helo sheekh kale asagana qaacidooyinka 88 dhaafiyay marka waa qaacido muhiim ah haddaan soo koobo oo dul maro qaacidada magaceeda waxa la yiraahdaa sida idin muuqataba at-tartiib al-hijaa'i waa kala horeynta alphabetical orderka waxa lagu yiraahdaa ingiriiska kale sida magaca abdi uu uga horeynayo magaca warsame sababtoo abdi wuxuu ka bilaabmaa a halka warsamana uu ka bilaabmaa w sidaa darteed markii laba aad shabahaan waxaa la eegayaa xarfaha iska shabahaan sida ay u kala horeeyaan ma ba'ba ma caynba ma fa'ba ma qaafba ma ya'ba ma nuunba sida tusaalayaashii 8 hadda aan sharaxay aan ku aragnay midda 9aadna insha Allah walaalaha muuqaalkan oo gaari doono insha Allah isku dayeen kitaabkan kale ee 88 tusaale oo sheekuna quraan ka soo aruuriyayna ayadana sidoo kale hal raadiyo kitaabka qofkii u baahnaa soo degsada magaciisa halka uu ku qoran yahay wixii aan khalday naftayda shaydaan ka ahaaday wixii aan saxayna fa min Allah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh